نبى عيجي ننعنو خلاص وكوستي أنتنا وقعيجي حرب وسوقت وكديل ربي ناق ليه أمرك سو بناق صوب بحيس أرتي وكفجو ويسي وحين وفجو سديح جودان ليه هدوك كودعو برادر عرورتها نغا cunين ilmaha yararka naga rafaadinin isbitaal tag haluu daaweey السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال halka adiga daawanaysaan waa Asjaan official aniguna waa saaxiibka Soomaalida Asjaan isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan filayaa inaad xiiso qabtaan sida anigu kugu xiiso qaba si lamid ah waxaad ku soo dhawaataan marka la barnaamijkeeni maxaa cusub maanta barnaamijkeena maxaa cusub maanta oo had iyo jeer aad ku daawataan wixii ugu dambeeyay ee hadal heen ah ee ka taagan baraha bulshada ama social media maanta waxa ku daawo doontaan Juudanley oo Muqdisho ka dilaacay hadaba Juudanley ayaa lagu arkay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayagoona dhibaato u geystay mid kamid ah carruurta Soomaaliyeed ayadoona degmooyinka kala duwan haatan laga soo sheegayo in kuwa kalena laga dhigay carruur qoyska dhibaatadu gaartay wiilka abiis ayaa iyagana muuqaal idinkaga haya oo ay kaga hadlayaan sida ay wax u dhaceen laakiin uu bal yahay xataa nimanka oo wax soo daabay waa sheegay sidoo kale barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan haddii biiraahdo arday dhigata iskuulka Nuuruddin ee magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa gadood sameeyay kuwaasoo weerar dhagaxaan iyo iskugu jira gacan ka hadalba kula kacay maamulihii iskuulka iyo waliba macallimiintii oo ku jiray xilliga break time-ka balse marka hore intaan muuqaaladaas u gudagelin fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro oo muuqaalkayga kugu soo gaaro wifto adigoo iska dhaxmaray YouTube-ka hadii muuqaalkaygan uu wifto kugu soo gaaray ama uu ka soo horbaxay hanala dhaafin subscribe saaro si aad u daawatid muuqaalada xiga ee update-ka ee xil walba halkaan aan ku soo deeno labada arin ay idin wada intaan u gudagelin sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego in janaalka aan ka bilaabay barnaamij cusub oo la magac baxay shalay iyo maanta barnaamijkaas shalay iyo maanta waxaa lagu wareysan doonaa dadka magaca ku leh social media bulshaduna ay garanayso hadaba barnaamijka ugu horeeyay ayaan sameeyay oo aan soo galiyay hadii aad u baahan tahay inaad wax ka ogaatid barnaamijkaas muuqaalka waxaan soo gali doonaa linkigiisa description-ka ama channel-ka gadaal u booqo muuqaalkii ka horeeyay halkaas ka soo daawo sidoo kale dad badan oo caan ayaan soo wadaa oo muuqaaladooda qaar hadda la duubay oo diyaarsan yihiin iyo waliba kuwa kale oo hadda aan ku raad joogno wamaasatiin daawadayaal sida aad markasta inoo daawataan aadna ii dhiirigelisaan waa hagaag aan ku soo laabana barnaamijkeena aan ku hormaro arintii Juudanleyda caasimadda Soomaaliya Muqdisho ka dilaacday Juudanley ayaa ka bilaabatay Muqdisho waxa ayna dhibaatada ugu horeeyay gaarsiiyeen wiil yar oo da'dii 10 jir ilaa 13 jir u dhaxeeya hadaba muuqaalka waalidka dhalay canuga iyo sida dhibaatada u gaartay waa kana ila daawada waxa la yiraahdaa Sheekh Nuur Nuux Sheekh Ibraahim wiilkayga waxa la Nuux Sheekh Nuux Sheekh Ibraahim wallahi waxaan la kulmay horta ani kulli ma joogin waa maqnaay waxaan joogay magaaladan ku maqnaa waxa la dhahaa wiilkaada tabcaan ay soo gaar marka dadka say wax u dhacay ii sheegeen meesha laga qaniinay waa banaanka meel cidla oo dhismo caabidin waa iska cidla ma fahanti نبى عيجي ننعنو خلاص وكوستي أنتنا وقعيجي حرب وسوقت وكديل ربي ناق ليه أمرك سو بناق صوب بحيس أرتي وكفجو ويسي وحين وفجو سديح Juudanleydu ma ahan bahal socdo Juudanleydu waa cudur la yiraahdo Juudan wuxuuna ku dhacaa dadka caadiga ah ee bini'aadamka adigoo kugu dhici kara anigoo kugu dhici kara Ilaahay nugma rido hadaba qofka cudurkaas Juudanleyda ku dhaco Juudanley hadduu kugu dhaco brother carruurta naga cunين ilmaha yararka naga rafaadinin isbitaal tag haluu daaweey waa cudur la iska daaweyn karo waxaan daraasay oo aan dib u baaray cudurkan Juudanleyda la yiraahdo dhibaatada uu keeni karo marka ugu horeeyay cudurkan qofka uu ku dhaco inta badan waxa daraasadaha ku arkay inuu qofku u baahanayo dhiig sida daraaddeed dadka dhiigooda u baahan yahay oo soo carfayaan marka qof weyn oo xoog leh inta aado dhigiisi kama qaadan karo oo macnaha ma dhibaateyn karo oo iska ka dhicinayo aaminsan yahay sida daraaddeed ilmaha yar yar ay ataagaan oo ay ka raadiyaan dhiiga
xanuun haayo ayaan u geysanaya arintaas darteed sida daraadeed canuga yar ee miskiinka dhibaatadaas ay gaarsiiyeen asagoo ninkaas raadsanaya macnaha inuu ku nafiso dhiiga canugaas hadaba cudurkan waa uu ku yaraa Soomaaliya waa ay jiri jirtay waqti in lagu cabsi jiray caruurnimada waa laga yaabaa adiga in lagu cabsi jiray hay'ad judaaleeya soo socotay seexo ama banaanka isku istaagin marka waa wax jiro dhibaatoona leeyahay kaliya waxaan rabaa inaan ku wacyigelino barnaamijkan dadka Soomaaliyeed ee caruurta heestaan fadlan ka taxadara magaaladu waxa ku soo kordhay cudurkaas dad qaba joogo waxayna raadinayaan dhiig sida daraadeed caruurtiina ka taxadara oo ilaaliya oo halaga warqabo halkaas aan kaga soo tago barnaamijkaas sidoo kale magaalada Hargeysa iskuulka Nuuruddin waxa ka dhacday maanta arin falxumo ah dabcan waxa meeshaas ka dhacay ma ahayn wax qurux badan oo baraha bulshada la wadaago balse ardayda qayb kamid ah ayaa muuqaal ka duubeen xilli dhagaxaan iyo tuuriye iyo waliba alaab jijibin ay wadeen ardayda dhiganaysa iskuulkaas oo gadood sameeyay hadaba muuqaalkaas marka hore bal ila soo daawada kadib ayaan wax ka dhihi doonaa hadaba sidaad muuqaalka ku aragteen ardaydu waa dhalinyaro u badan yihiin dabcan dhalinyarana waxa la yiri intay geed ka boodaan ay tala ka boodaan kumaysan fakirin meesha ay burburinayaan dhibaatada u geysanayaan inay tahay goobtoodii waxbarashada mustaqbalkooda dhisi lahayd waxa la sheegay inay ka caroodeen qaar kamid ah asxaabtoodii ama ardayda qayb kamid ah oo adigu fal ay sameeyeen darteed iskuulka lagaga ceeriyay waa sax waana sharci qofkii dhibaato ama wax aan wanaagsaneyn ku dhax sameeya ardayda maamulkan u arkaan inuusan u qalmin ardayda ku dhax jiro xaq ay u leeyihiin maamulka inay ka saaraan ardayda wanaagsan oo iskuulka laga buriyo ardaydan gadoodeysana meesha dhagxaanta iyo waliba iskuulkiina burburiheedin oo aad muuqaalada ka soo duubaysiin oo sumcad darrada waxbarashadiini goobtiini waxbarashada aad ku soo bandhigaysiin waxa in kaga wanaagsaneed inaad cabashadaas bal gudbisiin maamulka la fariisatiin guddi sameeysatiin aad ugu yaraan xal raadisiin ardaydaas aad u damqanaysiin si iskuulka ugu soo laaban lahaayeen balse ma aysan dhicin oo waxa meesha ka muuqato in dhalinyarnimo ay qaaday waxaan rajeynaa in arintaasi maamulka ay dejin doonaan ardaydaasi la ceeriyana hadii waxa loo ceeriyay wax sahlan dib u heli doonaan waxbarashadoodii hadaba aad baad ugu mahadsantahay sida u daawatay muuqaalka xigeenta ku kulmeen waa saaxiibka Soomaalida Asjaani oo idin leh nooli kulan